roobabkii kala duwanaa ee muddooyinka u dambeeyay ka da'ay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxay sababeen inay xidhaan qaar ka mid ah wadooyinka kala duwan ee halbowlaha u ah magaalada Hargeysa. Haddaba dawladda hoose magaalada Hargeysa ayaa saaka subaxnimadii hore waxay hawlgallo kala duwan ay ku banaynayso wadooyinkaas u xidhay roobku ka bilowday qaar ka mid ah xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan wadooyinka muhiimka u ah magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose magaalada Hargeysa Mudane Khadar Yuusuf Cali ayaa ugu horreyn ka warbixiyay hawlgalkan ee dawladda hoose magaalada Hargeysa saaka ka fulinaysay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa si rasmi ah uga bilowday maayir xaasib baaqay wallahan oo maanta ka hirgeli doona degmada Dhagax iyo degmooyinka Maxamuud Haybe Gacanlibaax berrina aan qorshe u yahay inaan degmooyinka kale ay gaarsiino insha Allah taala. shanta shirkadood ee caasimadda ka hawlgalana waxa laga rabaa in adeegooda sii milaabaan isla markaana ay service ku filan siiyaan guud ahaan degmooyinka kala duwan ee caasimadda, gaar ahaan la dagaalanka ciidaha uu keeno daadadku iyo mareennada qashinka la soo raaciyo wadooyinka iyo wixii la mid ah. marka dadka waxaan leenahay waqtiyada roobka laga daayay qashinka la soo raacinayo biyaha dawladda hoose iyo shirkadaha ku hawlan nahli garab istaago. dadweynaha waxaan uga digaynaa in aan goobta qashinka laga nadiifiyay iyo goobaha laga nadiifiyay aan keenin. waxa kale oo aan uga digaynaa goobaha biyo mareennada ah dadku inay iskaga fogaadaan kana daayaan dadkan qashinka inay caadaysteen xilliga roobku da'ayo inay soo raaciyaan qashinka goobaha laagaha biyo mareennada iyo goobaha laamiyada ah. xoolaha la raaci karaa laakiin dad lama raaci karo. ilaahay baa mahad leh nimcada nabadgelyada roobka barwaaqadiina siiyey oo ilaahay loogu xamdi dhaqo nimcada iyo barwaaqadu nimcadu nusqaanteedana way leedahay. waxaan dadweynaha ku codsanaynaa laba qodob. waxaanu leenahay dadka laagaha degan laagaha ka guuraan. qof intuu 10 bilood soo iibiyay carruurtiisa soo raray laag dabada geliyay aakhiradii adduunyada ugu xuntay xilli roobaadka laagaha laga baxo haddii la awoodi waayo oo awood ay saamixi weydo inay laagaha ka guuraan dadka kulli asii dawlad ahaan gacan baanu siino laagaha waanu ka rarayay laakiin xilli roobaadka ha ka baxaan laagaha. Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.